cabdiqani ibraahim salaf oo ah musharax u tartamaya maayirnimada magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska ay dhowaan wada gaadheen asxaabta mucaaridka iyo madaxweynaha Somaliland heshiiskaasi oo ku aadanaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidoo kalena cabdiqani salaf waxa uu ka hadlay tabashada qaar ka mid ah gobolada Somaliland ay tabanayaan arrinta saami qaybsiga inkastoo cabdiqani salaf uu ka garaabay arrinta saami qaybsiga haddana waxa uu soo jeediyay in la horeysiyo doorashooyinka arrinta saami qaybsigana dib loo dhigo run ahaantii horta marka koowaad arrinta markaan dul istaago doorashadii waa tanimka dhow ee la qabanayo insha Allah taala sanadkan arrinta doorashaduna muddo badan bay muran ku soo jirtay aakhirkii waxa soo afjaray muranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii aan halkan aad uga mahadnaqayo inuu madaxweynuhu doorashadii aakhirkii inay doorasho dhacdo meel mariyay sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa madaxda xisbiyada oo iyaguna sida ay arrinta loo soo afjaray la isla qaatay in doorasho wadanka ka dhacdo waad baan ugu mahadinayaa sideen wada ogsoonahay qoladan musharaxiinta ahi waxa jira rag dhowr iyo 10 sano musharaxiin ahaa rag baa iyagoo sharaxan oo musharaxiina dhintay iyagoon xilba qabanin waxaan muddada dheeraatay sida kuwa baarlamaanka oo kale arrinta saami qaybsiga horta waa xaq oo loo baahnaa in mar hore la qabto oo ma garanaysaa in saami qaybsi cadaalad ku dhisan la qabto aad bay u fiicnayd qof kasta oo reer Somaliland arrinta waa ka raali annaguna raali baanu ka nahay laakiinse Soomaalidu waxay tiraahdaa marka aad doonayso inaad xaabo soo gurato gudin af badan baa marka hore la qaataa si ay xaabada aad ugu soo gurato haddaba baarlamaanka golihii wakiilada inaga saqiireemka inaga sii tagaya 15 sanadood bay fadhiyeen mushkiladda ugu weyn ee looga baahnaa inay xaliyaan waxay ahayd arrinta saami qaybsiga manay xalin oo way ku fashilmeen intii dambana waxay ka dhigteen gaashaan ay kaga badaan doorashada oo may marnaba rabin arrintaana wax ka qabtaan maantana rajo nimankaasi saami qaybsiga ay ku qaban karayaan iyo waqti ay ku qaban karayaan toona uma hadhin waxay la tahay inagoo saami qaybsiga wada doonino ay dad badan wax tabanayaan in la helo gole baarlamaan oo aynu dooranno oo arrinta saami qaybsiga ka dhiga priority-gooda koobaad taasina waxaynu ku heli karaynaa inaynu soo dooranno dad wanaagsan oo aqoon leh oo ammaano leh oo ay reer waliba ama maadaama kulli dadka musharaxiinta codka reerunbaa siiyaan kasoo dimuqraadi nahay reer waliba qofkii ugu mudnaa ee ugu aqoonta badnaa ee ugu akhyaarsanaa uu keeno kadibna markaynu golo fiican meeshii helno oo aqoon leh oo diin loo ammaano leh oo dadku ay matelayaan garanaya shaqadoodana fahmaya markaas ayay inoo suuroobaysaa inaynu saami qaybsi dhawa helno saami qaybsigu waa arrin loo baahnaa waana arrin ku habboon in priority-ga ay ka dhigaan golaha cusub priority-gooda koobaad ay ka dhigaan golaha cusubi run ahaantii waan ka garaabay arrinta saami qaybsiga laakiinse haddii imika aynu saami qaybsiga ku beegno waqtiga doorashada kuwana fursad bay sii helayaan muddo dheer bay sii joogayaan dadkana doorasho ka dhici mayso marka aniga fikirkayga waxa ila qurux badan in aynu maanta isugu tagno dadka reer Somaliland shacab iyo dawlad iyo maxaafid iyo mucaarid inagoo gacmaha haysanaa aynu doorasho qabanno dad wanaagsan la soo xulanno dadka wanaagsan ay noo qabtaan barnaamijka koobaad ay noo qabtaan oo noqdo in aynu saami qaybsi cadaalad oo gobol waliba ku qanacsan helo Abduljabaar Maxamed Xuseen Television-ka Regal Hargeysa shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga
loodiruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akownkiisa Daarasalaam Bank. haddaba si aad u isticmaasho abka BayC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BayC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BayC